xaaji maxamed saad cali Dr. Qoryooley waxa uu bishii July 1953 ku dhashay magaalada Qoryooley ee gobolka Shabeellada Hoose. waxbarashadiisa dugsiga hoose iyo dhexe waxa uu ku qaatay iskuulka Masaarida ee magaalada Markaa ee Shabeellada Hoose. kadibna 1972 waxa uu ka qalin jabiyay dugsiga sare ee Jamaal Cabdi Naasir ee magaalada Muqdisho. intii uu dugsiga sare ku jiray waxa uu xilliyada fasaxa tagi jiray isku shuban Hordiya iyo Xaafuun ee gobolka Bari Puntland. January 1973 waxa uu kamid ahaa 30 arday dugsiyada wadanka ugu sareeyay oo loo xushay kuliyadda caafimaadka ee Jaamacadda Ummadda. kadib December 1978 ayuu darajada ugu sareysay kaga qalin jabiyay Jaamacadda Ummadda. markuu dhamaystay postgraduate internship waxa uu dhakhtar ka noqday gobolka Jubbada Dhexe ee Bu'aale. sanadkii ku xigayna waxa uu ka soo shaqeeyay gobolka Shabeellada Hoose. July 1981 waxa uu assistant professor ka noqday Jaamacadda Soomaaliya. July 1983 waxa uu waxbarasho takhasus dheeraad ah u tagay Jaamacadda Saskatoon oo dalka Canada ku taala. wuxuu 3 sano oo kale takhasus u tagay Mareykanka, kadibna waxa uu Mareykanka ka hirgeliyay goobo caafimaad oo uu khaas u leeyahay. xaaji maxamed salaad cali Dr. Qoryooley hadda waa musharax u taagan xilka madaxweynaha Puntland doorashada 2019. waxaan caawa hortiin isu soo taagay anigoo kalsooni weyn ku qaba inaad igu taageertaan hawshan raaxada leh oo aan rabo inaan wajaho anigoo wax damac gaar ah iyo dan gaar ah toona aan ka lahayn ay iga tahay kaliya badbaadinta dalkeeni aynu wada jeclayn ee Puntland dhulkii odgoona. markaan arkay inaan ceelna u qodnayn cidna u maqnayn waxaan maantay inaan cadeynayaa inaan ahay musharax u taagan doorashada Puntland sanadkan soo socda hadduu Ilaahay yiraahdo 2019 January 8. DMI